بسم الله الرحمن الرحيم. هل كان ومساجدك كام كقلقل كل حياله دكسي قرآنك يقول بمساجدك القرى هاتن أرضية أغانتا waxa ay dukadeen Allah ka aqbalo salaada duhur iyo macallimiintoodii iyo mas'uuliyiinta kale ee dugsiga qura waxa ay dukadeen salaada duhurka waxaana loo diyaar garoobayaa sidii casharadii maanta ay qaateen haddana mar kale loogu noqon lahaa oo marka ay qadeeyaan kadib waxa ay ku noqonayaan dugsigii waxbarashada quraanka ee qura oo ay ka dhiganayeen quraanka kariimka waxa kamid ah dadka jooga macallimiintii مسؤولينتي محمد حسين عبداوي وكمد يحيى iyo macallinkii kale dugsi quraanka qaybtii gabdhahana meel kale ay ku dukanayaan Allah ka aqbalo iyagana salaadooda mardhowna waxa hadana ay ugu tala gashay qura in agoonta loo qaybiyo waxoogaa raashin ah oo loogu soo deeqay hadii Allah idmana mardhow ayaa la qaybin doona insha Allah taala ما هو كلية أنت عاد أركيسان أرضيدي أو دكسي قرآنك القرآن وحكي لنا إشي أنت ويكبدينهن حسي شوحة إلهي حمدك سئل مانتي أنت أي كل مسي إلى صلاة الظهر وذا الدكان ولشان وحي كمديهن أرضيدا أقونتا وحكبرت دكسي كامك القرى كامك قلقل كل حياله دكسي وحلي القرى أرضيدا لما تدا أركيسان وأرضيدا أقونتا wax ku barata dugsiga ilaahayna haleeshiisiyay inay wax ku bartaan baabuurkan Soomaalidu waxay u taqaanaa qooqan ama runet ama saarif oo magaca ku yaal halkaas waa saarifka xaggaas ku yaala aad u jeedaan maxamed xuseen cadaawe mas'uulka kaamka qulqul ahna madaxa dugsiga quraanka ee qura gaarigan waxa loo iibshay oo loogu adeegaa dugsiga kaamka qulqul dugsiga qura aan iraahday ayaa loogu adeegaa oo iskale agoonta ayaa loogu talagalay howlahooda gaarka ah loogu qabtaa cid kale lama wadato sida aad ku arkaysaan geedkan hoostiisa ayuu yaalaa waxaana loogu talagalay in howlahooda shaqo loogu qabto gaariga markaad eegtid waa gaari gaduudan oo cusub muddada uu jirayna waxaad ka dareemi kartaa sida muuqaalkiisa ah waa sidii loo iibiyey baabuur private ah dad ku socdaan ma aha waxaa loogu talagalay oo keliya in adeega dugsiga iyo kaamka agoonta loogu shaqeeyo haddii ala yidhaahdana waxaan filayaa in intaas uu idinkaga filan yahay muuqaalkii baabuurka ardaydan aad arkaysaan ee agoonta waa ardayda dhigata dugsiga quraanka tarbiyadda islaamka ee qura waana ardayda ugu sarreysa quraanka xifdintiisa iyaga ayaa sheegi doona haddii Allah uu dil ogolaado in meesha ay qof walba uu marayo quraanka uu noo akhrin doono waxaan ku horeynaynaa ardayga ugu horeeya waxaan weydiinaynaa magaciisa magacaaga sheeg Saleebaan Maxamed Cusmaan ayaa la yiraahdaa waxaan ku weydiinayaa quraanka xagee ka gaartay ma noo akhrin kartaa hay noo bilow أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا
قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعو إليه وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وإذ صدق الله العظيم. عبد الرحمن آدم محمد. ardaygan labaad waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan aadan maxamed. waxaan ku weydiinayaa qur-aanka xaggee maraysaa? wuxuuna ka mid yahay ardayda agoonta ee dhigata dugsiga qur-aanka kariimka iyo tarbiyadda islaamka umulqura. cabdiraxmaan xaggee qur-aanka maraysaa? ma noo akhri kartaa? hay noo bilow. بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. ardaygan waxaa la yidhaahdaa cabdijabbaar cumar faarax. wuxuu ka mid yahay ardayda agoonta ah ee dhigata dugsiga xifdinta qur-aanka iyo tarbiyadda islaamka umulqura. haye qur-aanka xaggee maraysaa? إبراهيم ما مريس هذيك ما أخري كرتها هي ناخري. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. ardaygan kale ee agoonka ay dhigta dugsiga